filinkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa gabadhan waxay si farxad leh ugu socotay shirkad weyn si looga qaado waraysi shaqo, laakiin markii ay jaranjarada sii koraysay ayaa waxaa si lama filaan ah uga siibtay kabaheedii dhaadheeraa, kadibna hoos ayay u dhaceen. Gabadhii waxay si degdeg ah ugu carartay dabaqa koowaad si ay kabaheedii u soo raadsato, markaasay si lama filaan ah ula kulantay nin qurux badan. Ninkii gacantiisa waxaa weli ku jiray kabihii ay iyadu lahayd. Muuqaalka like noo saar. Riima waxay dareentay in xaaladan ay aad u qurux badan tahay, sida sheekadii caanka ahayd ee Cinderella, balse si lama filaan ah ninkii ayaa afka furtay isagoo raba inuu Riima ku dacweeyo isku daydil, waayo kabihii dhaadheera ayaa madaxa kaga dhacay. Riima markii hore waxay u malaysay inay la kulantay amiirkeedii riyada, laakiin ma filaynin in ninkan quruxda badan uu dabeecad iyo maskax sidaas u dhib badan uu leeyahay. Ma aysan rabin inay waqtigeeda qaaliga ah ku lumiso qof noocaas ah, sababtoo ah ujeedada rasmiga ah ee ay halkaas u timid ma ahayn inay shaqo codsato, balse waxay ahayd inay hesho nin qani ah si ay nolosheeda u beddesho. Muddo yar ka hor, Riima aabaheeda ayaa si kedis ah u geeriyooday. Intuusan aabuhu dhimanin, wuxuu khaanada ugu tegay gabadhiisa wax qarsoon. Riima waxay u malaysay in aabaheeda uu lacag uga tegay, markaasay si dhuumasho ah qolkiisa u gashay, laakiin si lama filaan ah waxay ugu timid oo keliya ogeysiis qoraal ah oo shaqo qorista shirkad. Sidoo kale aabaheeda wuxuu warqadda dhabarkeeda ugu soo qoray dhowr xariiqo. Waxaa soo baxday inuu rabay inay shirkaddan tagto si ay u hesho nin hodan ah oo nolosheeda wax ka beddela. Intaas oo keliya maahan, aabaheeda wuxuu sidoo kale kaga tegay dayn aad u badan iyo ilmo aan weli dhalanin. Waxaa soo baxday in eedadeed ay uur lahayd. Sanadkaas iyada iyo aabaheeda waxay u guureen inay la noolaadaan eedadaas. Ka hore intaysan labadoodu halkaas aadin, eedadu waxay horay u lahayd 2 gabdhood oo kale. Maadaama qoyska Riima ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan deynta, maxkamaddu waxay xaraash gelisay gurigoodii. Ugu dambeyntii waxay ku khasbanaadeen inay guri bannaanka ah soo kiraystaan, waayo gurigu wuxuu ahaa mid qolalkiisu ay aad u yar yihiin. Riima waxay ku khasbanaatay inay hal qol wada seexdaan walaasheeda. Waxay ku khasbanaatay inay aqbasho khatarta inay ilmaha ka soo dhacaan si ay shaqada u sii wadato, laakiin markii dambe waxay isku daalisay shaqada, waxaana la dhigay isbitaalka. Intii ay Riima u tacsiyadaynaysay eedadeeda, waxay ka fikirtay maalmaha adag ee horyaala. Eedadii waxay jiiftay dhulka, Riimana waxay gacmaha ku haysay ilmihii yaraa, halka walaasheeda Hawaab ay si qarsoodi ah u cunaysay caanihii budada ahaa ee loogu talagalay ilmihii yaraa. Haddii arrimuhu ay sidaan ku sii socdaan, qoyska Riima oo dhan waxay u dhiman lahaayeen gaajo mar dhow. Xilligan Riima waxay soo xasuusatay ogeysiiskii shaqo qorista ee shirkadda, waxayna go'aansatay inay halkaas ka shaqayso si ay u guursato nin qani ah. Marka laga sheekaynayo shirkaddan, qof kasta ma caawin karo inuu soo hadal qaado wakiilka shirkadda. Jaamin wuxuu ahaa qof karti leh, qurux badan, laakiin dabeecaddiisu waxay u muuqatay mid aan caadi ahayn. Waqtigan xoghayihii wuxuu soo sheegay in shirkaddu ay weyday lacag fara badan bishii hore. Markuu taas maqlay, Jaamin wuxuu isla markiiba u sheegay xoghayihiisa in haddii uu arko shaqaale kasta oo noloshiisu adag tahay, inuu mushaharka ugu kordhiyo. Markii ay Riima u timid shirkadda waraysi shaqo, waxay si lama filaan ah kabteedii ugu riday madaxa Jaamin, markaas ayuu u qaatay in Riima ay ugu talogashay. Intaas keliya maahan, Jaamin wuxuu sidoo kale ka shakiyey inay bartilmaameedsanayso hantidiisa. Markii ay Riima maqashay Jaamin oo leh hadalkaas, waxay u malaysay inuu waalan yahay. Riima ma ay rabin inay wax xiriir ah la yeelato isaga, markaasay u muujisay inay raaligelinayso, waxayna rabtay inay dib u qaadato kabaheedii dhaadheeraa. Laakiin Jaamin wuxuu diiday raaligelintii. Wuxuu xitaa ku adkaystay in Riima ay si ula kac ah kabta madaxa uga dhufatay. Markaas kadib, Riima waxay u sharaxday inay ahayd taxadar la'aan inay kabta kaga dhacdo madaxiisa. Laakiin Jaamin wuxuu u qaatay in nasiibkiisu uu had iyo jeer wanaagsan yahay. Wuxuu xitaa ku adkaystay in Riima ay si ula kac ah kabta ugu soo tuurtay madaxiisa. Riima waxay dareentay in wax kasta oo ay sheegto uusan Jaamin rumaysanaynin. Sidaa darteed, waxay go'aansatay inay tusto waxa loola jeedo si ula kac ah, si toos ah ayay isaga u riixday. Kadib Riima ayaa si adag u laabatay, taas oo ka dhigtay Jaamin mid aad u naxay oo hadal ka soo bixi waayey. Laakiin Riima ma aysan ogeyn in Jaamin uu yahay maamulaha guud ee shirkaddan. Sababtoo ah isfaham waagii hadda dhacay awgeed, wuxuu diiday in Riima laga qaado waraysiga shaqada. Wuxuu xitaa ku jeesjeesay si uu ugu raaxaysto guusha uu ka gaaray. Dabcan Riima ma ahan qof si fudud loo xoogaysan karo. Waxay u ducaysay in onkodka habeenka roobka daaya uu ku dhaco Jaamin. Si lama filaan ah, onkod ayaa dhacay habeenkaas. Jaamin wuxuu kaloo arkay Riima oo si joogto ah u habaaraysa. Aad ayuu u cabsaday, markaasuu guriga u cararay. Intaas kadib Jaamin wuxuu soo xasuustay wixii galabtaas dhacay. Xitaa wuxuu dhoola caddeeyey isagoon is ogeyn. Runtii Jaamin had iyo jeer dumarka wuxuu u arki jiray sidii dhagaxaan oo kale oo dareen uma uusan lahayn. Jacaylka waxba kama geli jirin. Laakiin tan iyo markii uu la kulmay Riima, qofkaas qabow ee uu ahaa ayaa bilaabay inuu isbeddelo. Inta badan wuxuu qiyaasi jiray Riima, indhihiisana hadda ulama muuqanin dhagax, balse waxay ula muuqatay gabar aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Jaamin wuxuu rabay inuu iska joojiyo ka fikirka Riima, markaasuu bilaabay inuu jimicsi sameeyo. Laakiin taasi waxba ma aysan tarin, waayo weli iyada ayuu ka fikirayay. Kadib Jaamin wuxuu isku dayay inuu seexdo si uu u nasto, laakiin wuxuu qiyaasay Riima oo sariirtiisa ku dul boodboodaysa. Xilligan wuxuu ka shakiyey inuu waashay. Sababtoo ah Jaamin wuxuu rabay inuu ogaado qofka ay tahay Riima, wuxuu qorsheeyey inuu shirkaddiisa ku soo biiriyo. Markii ay Riima heshay taleefankii Jaamin, waxay weli u malaysay inuu u soo wacay si uu dhibaato ugu keeno. Markaasuu Jaamin u sharaxay inuu rabo oo keliya inuu ku martiqaado inay shirkaddiisa ka shaqayso. Inkasta oo Riima aysan rabin inay la shaqayso ninkan waalan, haddana lacag la'aan darteeda waxay ugu dambeyntii ogolaatay inay tagto shirkadda Jaamin. Kadib Riima waxay weydiisay in maanta
ay tahay maalintoodii ugu horeysay, laakiin Jaamin wuxuu u maleeyay inay tahay maalintii ugu horeysay ee ay isjeclaadaan. Sidaas darteed wuu is-celin waayay ilaa uu wejigiisii guduutay xishood dartiis. Kadib markii uu Jaamin xaqiijiyey in Rima ay shirkadda ku soo biiri doonto, wuxuu si qarsoodi ah u faraxsanaa muddo dheer. Isla markaana si uu u soo dhaweeyo maalinta koowaad ee Rima ay shirkadda imaanayso, wuxuu bilaabay inuu qurxiyo muuqaalkiisa. Jaamin ma xiran keliya silsilad dahab ah, laakiin wuxuu sidoo kale tijaabiyey surwaallo badan. Ugu dambayntiina wuxuu doortay suud. Laakiin waqtigan Jaamin wuxuu ka cabsaday in haddii uu aad isu qurxiyo ay Rima jacayl u qaadi doonto. Sidaa darteed ugu dambayntii wuxuu soo qaatay suun dahab ah, sababtoo ah wuxuu u qaatay in Rima ay hubaal nici doonto suunkan. Sidii la filayay, Jaamin waxaa si dhab ah ugu qososhay Rima oo ku jeesteestay xirashada suunkaas. Waxay ugu yeertay dadka waalan, waayo nin kasta oo xiran wuxuu ka dhigayaa gabdhaha inay ka fogaadaan. Waxay kaloo tiri suunkaas aad ayuu ugu qurux badan yahay isaga. Markuu taas maqlay, Jaamin aad ayuu u xanaaqay, markaasuu suunkii isla goobtii iskaga furay. Waxaa xigay xafladii barashada shaqaalaha cusub. Kadib Jaamin ayaa bilaabay inuu hogaamiyo socodka. Waqtigan Rima waxay weli u malaynaysay in kamarad qarsoodi ah ay meel dhow ku rakiban tahay, laakiin saaxiibkeedii shaqada ee ag fadhiyey ayaa u sheegay inay tani tahay xaflad soo dhaweyn ah oo loo sameeyo shaqaalaha cusub. Waxay kaliya u baahnayd inay sheegto riyadeeda. Dadka kale oo dhan waxay rabeen inay weligood ku noolaadaan nolol farxad ama ay guursadaan nin dhalinyaro ah, laakiin Rima waxay sheegtay inay rabto inay noqoto sidii Cinderella oo kale. Hadalkaas wuxuu keenay in Jaamin uu si khaldan u fahmo. Wuxuu u qaatay inaysan halkan u imaanin inay shaqayso, balse ay u timid inay guur raadsato. Markaasay Rima sharaxaad ka bixisay, waxayna tiri waxay kaliya rabtaa inay shaqaysato, kadibna ay hesho qof lagu kalsoonaan karo oo ay guursato. Xilligan Jaamin wuxuu arkay in Rima ay dhibaatooyin badan leedahay, wuxuuna damcay inuu shaqada ka buriyo, laakiin iyadu waxay rabtay inay shaqadeeda sii haysato. Sidaa darteed Rima waxay isticmaashay hadallo ay kalsooni ku dheehan tahay si ay dareenkeeda u muujiso. Waxay ballan qaaday inay hubaal si dhab ah u shaqaysan doonto. Kadib Jaamin wuxuu Rima u soo jeediyey sharad tartan. Haddii ay Rima guulaysato, waxay joogi kartaa shirkadda oo ay sii wadan kartaa shaqadeeda. Isla markaana wuxuu Rima u oggolaaday inay iyadu go'aansato waxa lagu tartamayo. Laakiin si lama filaan ah, waxay rabtay inay kula tartanto cabitaanka kookaha. Waxa ka sii yaab badnaa waxay ahayd in Rima ay xitaa furi weyday dhalada kookaha, waxaana ku jeesjeesay Jaamin. Ugu dambayntii Rima waxay ku qasbanaatay inay u wareegto tartanka legdanka gacanta, laakiin nasiib darro ma aysan u xoog badnayn sida Jaamin oo kale. Inkasta oo ay xooggeedii oo dhan isugu geysay, haddana way dhaqaajin weysay gacantiisa. Kadib Rima waxay isticmaashay xeelad kale. Waxay isku dayday inay labada gacmoodba u isticmaasho si ay uga guulaysato Jaamin, laakiin weli gacantiisii way dhaqaajin weyday. Xilligan Rima waxay si lama filaan ah u aragtay in cidiyaha Jaamin ay burbursan yihiin. Waxay u malaysay inay iyadu dhaawacday markii ay legdamayeen. Jaamin wuxuu arkay Rima oo aad u welwelsan. Wuxuu u sharxay inuu ahaa dhaawac ka soo gaaray dhicitaan markii uu yaraa. Waxaa laga yaabaa inay tani ahayd markii ugu horeysay ee uu Jaamin dareemo qof kale daacadnimadiisa. Daqiiqadaasna wuxuu dareemay inuu in yar u naxay ama ay soo jiidatay Rima. Si uusan in badan uga fekerin, Jaamin wuxuu soo jeediyey inay cabaan kookaha. Rimana waxay cabtay iyadoo aan hadalba dhihin. Markii ay nus ka cabtay si kedis ah, waxaa dhacday dabayl xoogan. Muuqaalka xilligaas wuxuu u ekaa filimada sayniska ee khayaaliga ah. Kadib in ka badan hal daqiiqo, Rima waxay ku dhammaysay cabitaankii. Markaas waxaa la gaaray markii uu Jaamin cabbi lahaa. Waxaa laga yaabaa in kookahoodu uu sixir lahaa, sababtoo ah Jaamin markuu hal kabasho oo keliya uu cabbay ayuu biyo badan afka ka soo tufay. Taas darteed Rima waxay ku guulaysatay inay joogto oo ay shaqayso. Maadaama ay Rima cabtay kooko aad u badan, markii ay rabtay inay baxdo, waxay dareentay inay musqul u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Waqtigan Jaamin oo dhinaceeda taagnaa ayaa ogaaday inay wax ka beddelan yihiin gabadha. Ugu dambayntii Rima waxay ku qasbanaatay inay sheegto inay rabto inay aado musqusha, laakiin labadii musqul ee ugu dhowaa aad ayay uga fogaayeen. Xilligan Jaamin wuxuu Rima siiyey dalladii uu had iyo jeer u watay, wuxuuna u sheegay inay isku daboosho marka ay musqusha aadayso. Laakiin Rima waxay ku jawaabtay inay tahay qof wanaagsan, waxayna Jaamin u sheegtay inuu si degdeg ah uga tago. Markii uu arkay in Rima ay aad ugu adkaysanayso hadalkeeda, Jaamin wuxuu ku qasbanaaday inuu xambaaro oo uu geeyo musqusha ugu dhow. Markii ay Rima ka soo baxday musqusha, waxay aragtay in Jaamin uu weli sugaayo. Markay bannaanka timid, waxay soo xasuusatay sidii uu hadda u xambaaray markii ay musqusha u baahnayd. Daqiiqadan Rima waxay dareentay inuu dareen u qaaday isaga. Waxay istiri Jaamin dhab ahaantii waa qof wanaagsan, laakiin isla markiiba way isbeddeshay. Markii ay Rima iyo Jaamin qarka u saarnaayeen inay baxaan, ayaa gabar kale soo muuqatay. Gabadhan ma ahan oo keliya inay Jaamin ugu yeertay macaane, balse waxay kaloo sheegtay inuu yahay ninkii u doonanaa. Rima waxay horay u maqashay Jaamin oo leh inuusan ahayn qof raba inuu guursado weligiisa, laakiin hadda waxaa halkan ka soo muuqatay gabadhii u doonanayd. Xilligan Rima way kala garan weyday inuu Jaamin yahay qof wanaagsan iyo inuu yahay qof xun. Waxay ogaatay inay isku doonan yihiin, markaasay iska tagtay iyadoo niyad jabsan. Dhab ahaantii waxay ahayd uun heshiis dhex maray labada qoys oo dano ganacsi ku fadhiya. Jaamin iyo Deni ma lahayn wax dareen jacayl ah oo ka dhexeeyey, inkasta oo ay labadoodu ay isku doonanayeen oo keliya iskaashi ganacsi dartiis. Haddii ay soo baxdo xan ku saabsan jacayl dhex mara Jaamin iyo Rima, shirkadda Deni ayaa saameyn la kulmi lahayd. Sidaa darteed Deni waxay u sheegtay Jaamin inuu ilaaliyo xiriirkan danaha ku dhisan, waxayna soo xasuusisay inuusan u oggolaanin soo muuqashada Rima inay saamayso shirkadooda. Xilligan Rima waxay hadda ku soo laabatay guriga markii ay soo xasuusatay muuqaalkii duhurkii markii uu Jaamin u xambaaray
saaray musqusha. Way dhoola cadaysay iyadoo ka fekeraysa jirkiisa xoogga. Dhinaca kale, Jaamin isna wuxuu awoodi waayay inuu joojiyo ka fekerka Riima. Wuxuu bilaabay inuu fadhiisto oo uu jimicsi sameeyo si uu maskaxdiisa uga saaro fikirka gabadhan. Laakiin habkan waxba ma uusan tarin. Weli wuxuu soo xasuusanayay muuqaalkii uu Riima musqusha u qaaday. Waxay kaliya ku tiri dhaqso, laakiin hadalkaas ayaa qalbigiisa xaday. Maalintii xigtay, Riima waxay si lama filaan ah ula kulantay Jaamin iyadoo u socota shaqada. Riima way xishootay waxayna isku dayday inay si dhuumasho ah ku baxsato. Laakiin Jaamin ayaa ku jeesjeesay Riima isagoo ugu yeeray gabadha isku kaadisay. Kadib wuxuu ku qasbay inay raaligelin ka bixiso wixii dhacay shalay. Riima waxay sheegtay in iyaduna ay rabtay inay raaligelin bixiso. Laakiin gabadhii u doonanayd ayaa si lama filaan ah ugu timid. Markaasay dhibaatadii shalay iska ilowday. Riima ayaa markaas weydiisay sababta uu Jaamin u qariyay inuu yahay qof u doonan gabar kale. Xilligan wuxuu is yiri malaha gabadhani way ku jeceshahay. Markaasuu Jaamin isagoo kalsooni isku qaba ku yiri inuusan iyada jeclaan karin. Laakiin Riima ma ahayn qof laga adkaan karo. Isla markiiba waxay ku jeesjeestay Jaamin iyadoo ku tilmaantay beenaale. Wuxuu horay u sheegay inuusan aaminsanayn guurka. Laakiin dab ahaantii wuxuu si qarsoodi ah u noqday qof u doonan gabar kale sidii qof waalan oo kale. Markii ay Riima soo hadal qaaday ereyga waali, waxay soo xasuusatay inuu Jaamin yahay madaxdeeda shaqada. Si ay u ilaashato shaqadeeda, Riima waxay ku qasbanaatay inay madaxa foorarsato oo ay raaligelin bixiso. Kadib waxay caddaysay inaysan la saaxiibi doonin dadka waalan. Labadoodu dhab ahaantii waa dad jecel inay sheegaan waxyaabo ka soo horjeeda waxa ay qalbigu ka dareemayaan. Labadooduba si cad ayay isku jecel yihiin, laakiin waxay diidayaan inay qirtaan. Inta ay Riima shaqaynayso, Jaamin wuxuu u soo jeediyey inuu si gaar ah u tababaro. Laakiin markii ay aadeen tababarka, Deeni waxay aragtay Jaamin oo ku qasbaya Riima inay dhaqdo dhammaan daahyada shirkadda. Inkasta oo ay Riima og tahay inuu Jaamin ka aargudanayo, haddana waa inay u dulqaadataa si ay bixiso deyntii aabaheeda lagu lahaa. Intii ay Riima ku mashquulsanayd dhaqidda dharka, ayaa waxa u timid Deeni waxayna soo hadal qaaday riyada Riima ee ah inay guursato nin qani ah. Markay halkaas marayso, Deeni waxay u sheegtay Riima haddii ay dhab ahaan rabto nin hodan ah, inaysan ahayn inay halkan ka shaqayso oo ay habboon tahay inay tagto banaanka si ay u soo ducaysato. Deeni waxay ugu sheekaysay in maamule hore ay bixisay 1 milyan oo lacag ah si loogu duceeyo, isla markiiba ay heshay nin qani ah oo ay guursatay. Muddo dheer kadib, Riima waxay ugu dambayntii dhamaysay dhaqidii dhammaan daahyadii shirkadda. Waxay shidatay taleefankeeda si ay muusig u dhagaysato si ay niyadeeda ugu dhisato. Runtii, dhagaysiga muusigu wuxuu dadka ka dhigaa kuwa faraxsan. Riima iyadoo aad u faraxsan ayay bilowday inay ciyaarto inta ay daahyada qalajinaysay. Jaamin ayaa soo fiiriyey waxaana soo jiidatay dhoola cadaynteeda quruxda badan. Aad ayuu ula dhacay muuqaalkeeda wuuna is celin waayey. Jaamin oo raba inay wax uun dhex maraan ayaa u soo dhawaaday markaasuu si kedis ah uga dafay Riima sameecadihii dhegta si uu u dhagaysto waxa ay maqlayso. Laakiin intuusan wax badan dhagaysanin, taleefankii ayaa si iskiis ah ugu wareegay muuqaalkii xigay. Waxay filan waayeen ayaa dhacay markii sameecadihii ay ka soo baxeen dhawaaqyo xishood badan oo ah codad laga xishoodo. Riima ayaana si degdeg ah sameecadihii uga daftay si ay uga fogaato fadeexad iyo xishood. Laakiin markii ay sameecadihii soo jiidatay, waxay si lama filaan ah u weyday dheelitirkii. Markaasay dhacday. Ugu dambayntii, labadooduba waxay u dhaceen si isku duuban oo aad isugu dhow. Dhicitaankaas Riima ayaana sii xoojiyey dareenkii ka dhexeeyey. Si uu xishoodka isaga saaro, Jaamin wuxuu ku ammaanay sida ay daahyada si fiican ugu dhaqday. Riimana waxay ka faa'iidaysatay fursaddaas waxayna weydiisay inuu u dallacsiiyo shaqaale rasmi ah oo buuxa. Laakiin Jaamin isla markiiba waa uu diiday. Wuxuu xitaa ku yiri waxaad tahay qof khatar ah. Riima ayaa markaas si tartiib ah ugu sheegtay inay tahay qof waxtar leh ee aysan ahayn qof dhibaato keenaya. Maadaama uu dareemay isku soo dhawaanshahaas macaan ee Riima, Jaamin wuxuu soo qaatay dambiil markaasuu madaxa u geliyey Riima si uu u aamusiyo. Markii uu baxayay, wuxuu mar kale ku adkeeyey inay tahay qof khatar ah, taas oo ka dhigtay Riima inay aad u xanaaqdo. Maghribkii, Riima waxay u lugaysay gurigeeda. Shaqo adag kadib aad ayay u daalnayd. Laakiin Jaamin ayaa u yimid si uu ugu jeesjeeso, isagoo ku leh shaqo fiican ayaad qabatay. Kadib wuxuu u sheegay inay berito dhaqdo kubadaha yaalla barkada dhexdeeda. Hadalkaas Jaamin wuxuu mar kale kaga xanaajiyey Riima, waxaana maskaxdeeda ku soo dhacay fikrad ah inay shaqada isaga tagto. Kadib Riima waxay fariin mahadnaq ah ka heshay adeerkeeda oo u sheegay inay bixisay deyntii lagu lahaa. Halkaas markay marayso, waxay dareentay in mushaharkeeda oo keliya uu ku baxo bixinta deynta uusan ahayn mid waxtar weyn u leh nolosheeda. Markaasay Riima soo xasuusatay goobtii ay Deeni u sheegtay ee ahaa in 1 milyan oo keliya ay nolosheeda wax kaga bedeli karto. Riima dhab ahaantii waxay tagtay goobtaas si loogu duceeyo. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.